kusoo dhawaada channelka Banaadir Films waa Liibaan Ibraahim. Dhammaan inta channelka soo gasha waxaan idinka codsanayaa in aad channelka subscribe saartaan, wixii comments ahna igu dhaafa qaybta commentska. aad iyo aad ayaan idin salaamay. waxaan maanta idinla wadaagayaa muuqaal aan review ama faahfaahin ama tafaasiil kaga bixinayo nal ama leer loo adeegsado marka muuqaalada cinematiga ah ama muuqaalada aadka u qurxoon la duubayo sida short filmska, dokumentariyada ama vlogska. Package-ka ama baakado nalka uu ku yimaado marka aad furto waxaa ugu horeeya oo aad arkaysaa waa nalka ama leerka oo magaciisu yahay Pixel G1S RGB light. waxaa kaloo baakado ku jira waraaqda instructionka ama waraaqda laga akhrisan karo habka loo adeegsado ama loo isticmaalo nalkan ama leerkan. baakada waxaa kaloo ku jira birta loo yaqaano hot shoe oo ah bir leh meel nalka looga xiri karo ama looga rakibi karo kaamirada dusheeda. waxaa kaloo baakada ku jirta bir kale oo loo yaqaano iyadana cold shoe oo loo isticmaalo marka aad rabto in aad nalka ku xirto birta loo yaqaano light stand oo kale iyo wixii la mid ah. waxaad kaloo ka aragtaan muuqaalka fiilada oo ayadana ah USB oo markii aad rabto nalka in aad kaarikayso ama charge garayso loogu talagalay in aad isticmaasho. waxaa kaloo baakada lagu soo raaciyay boorso yar oo aad ku ridan karto nalka. sida aad ka aragtaan muuqaalka, nalka waxa uu leeyahay birta yar oo saa loo soo bixinayo. waxa ay wareeganaysaa birtan 360 degree taa oo ku sahlaysa in aad nalka meel meesha rabtid aad ku xiri kartid adigoo rotation sameynaya ama in aad u wareejin karo sida rabtidna u adeegsan kartid. markaa nalkan waxaa laga sameeyay birta loo yaqaano aluminium alloy oo ah bir aad quality-geedu u fiican. nalkan awoodda nuurkiisa ama iftiinkiisa waxa uu gaarayaa 1500 nit ah taa oo ka dhigaysa nal iftiin badan bixinaya. nalkan waxa uu leeyahay meel aad ka gaabin karto kana siyaadin karto iftiinkiisa ama nuurkiisa. waxa kale uu leeyahay 12 effects ah oo loo badbedeli karo, tusaale ahaan nalka ama leerka booliska ay isticmaalaan oo kale. waxa uu leeyahay nalkan full RGB light oo haddii aan af Soomaali ku sheego ay tahay macnaheedu kalarada buluuga, cagaarka iyo guduudka ama casaanka oo buuxa oo full ah ayuu bixinayaa nalkan. waxaana u sii dheer nalkan in aad bedeli karto gaar ahaan hue-ga oo kalarka ah iyo saturation-ka oo ah intensity-ga kalarka meesha laga bedelo oo taa oo ku siinaysa in aad kontroosho kalarada nalka iyo awoodda midabka uu bixinayo. hue-ga oo ah meesha laga kontroolo kalarka waxa uu ka bilaabanayaa 0 ilaa iyo waxa uu gaarayaa 359. saturation-ka oo ah qaybta awoodda kalarka waxa uu ka bilaabanayaa 0% ilaa iyo waxa uu gaarayaa 100%. nalkan iftiinkiisu ama nuurkiisa marka la geeyo 0% waa uu damayaa, marka la geeyana 100% waxa uu noqonayaa iftiinkiisa full ama mid buuxa nuurkiisa oo kaamil ah. color temperature-ka oo ah heerkulka midabka waxa uu ka bilaabanayaa 2500 oo Kelvin ah oo ah cabirka midabka iftiinka taa oo midabka iftiinka nalka ka dhigaysa mid qabow ah. ilaa iyo waxa uu gaarayaa 8500 Kelvin ah oo iyadana ka dhigaysa midabka heerkulka iftiinka nalka mid kuleyl ah. sida aad muuqaalka ka aragtaan waxa uu leeyahay nalkan shaashad yar oo aad kala socon karto marka aad wax ka bedelayso iftiinka kalarka iyo effects-ka. waxaan kaloo rabay in aan idinla socodsiiyo muuqaalkan hadda aad daawanaysaan ama videogan waxaan u adeegsaday isla nalkan. bateriga nalkan awoodda baterigiis waxa uu gaarayaa 3200 waxaana ka charge garayn kartaa ama ka kaarikayn kartaa adiga oo adeegsanaya fiilada USB-da. nalkan waxa uu u baahan yahay 2 saac iyo 50 daqiiqadood
oo kaarikayn ah taa oo ku siinaysa 150 daqiiqadood oo aad isticmaali karto nalkan asigoo heerka iftiinkiisu yahay 100%. haddii aad heerka iftiinkiisa ka hoos mariso 100%, waxa aad isticmaali kartaa nalkan in ka badan 150 daqiiqadood. muuqaalkan ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. subscribe-kana ha ka iloobina channelka, asxaabtiina la shargalaya muuqaalkan. waa Liibaan Ibraahim oo idin leh ismaqal dambo hadduu Alle yiraahdo.